kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka garsoorka fanka oo toddobaad waliba hadahan oo kale aad daawataan iyadoo barnaamijka garsoorka alaaba ay halkan si wada jira uga soo jeediyaan anigoo Sharmaaka Abuukar Amina iyo waliba Nadiifa Cali Shadoor mar kale iyo barnaamijka garsoorka fanka هيا نظيفة حجو شرماك حجكتين xiisaha fankiyo xulashada fanaanka iyo xidigii sanadka iyo xariiq jiidka dhacaayo xifaaltanka waan ka helayay xaggeen u raadsadaa oon ku xirmaa nadiifo أنا هاي حكتاس حقيقة شرمارك هو xaashahaya balsoodaa برنامج حصور ولا قدورة حقيرات أو فنكو كحفالتما SNTV بوحلقن حرق جيدكو كسعوداية شرمارك حفله هور فريسو fanaan weliba xirfadii codiyo xaragadii سوغان ولي بحرف كيت حجمي مرتدة yaa xatxata iyo cod xariira leh يا حرفدي هو حدك نقون كرا barnaamijka garsoorka fanka waa barnaamij dhawaan ka bixi doona telefishinka qaranka Soomaaliya waxaana lagu soo xuli doonaa إدقا هي حدك تفنكا barnaamijka قرصوركا fanka قرصوركا fanka barnaamijka garsoorka fanka waxa aad toddobaad waliba xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya studio uu ku leeyahay wadanka Finland barnaamijka waxaan ku tartansiinay ilaa iyo 32 fanaan waxaana maraynaa qaybtiisii afraad waxa toddobaadkan la soo dhaafay barnaamijka ku tartamayay afarta fanaan ee kala ah toddobaadkeenu kasoo gudubnay fanaaniinta barnaamijka martida noogu ah waxa ay kala ahayn Axmed Saki oo ku aadanaa Dayaxdan Nuurshe iyo waliba fanaanada Faadamiina oo ku aadanay fanaanada kale ee Laki Xaji Wacis barnaamijka toddobaadkan waxa uu ahaa barnaamij si aad ah xiiso gaar ah u leh iyadoo taageerayaasha fanaaniintii tartamaya ay codkooda si buuxda ay u dhiibteen balse natiijada gadaal ayaad ka ogaan doontaa waa sidaas nadiifo barnaamijka toddobaad walba toddobaadka ka dambeeya waxa uu si yeelanayaa xiiso iyo waliba in challenge uu ka yimaado dadka taageerayaasha dhaxdooda halka laga codeynaya ee website-ka ah iyo waliba baraha bulshada aad buu barnaamijka u qabsaday oo markaad fiiriso sidii hore oo uu ka duwan yahay toddobaadkan wuxuu ahaa mid baraha bulshada aad u haystay وسيدا شيخ شرماركة تضباط برنامج وحا مرتي إنه وقع فنانين يجونا آد وعلوس وحنا ترتنسي دونا تضباط كان هدي الله ودلو وقلاده فنانين تكلا أما بخرنا وين الشيء الناس يدتك وجذا ويا فنانين وحن تضباط كان ترتنسينا كلا فرحية فيسك وأولي بكؤديني فرحية وحين كؤدينا اللي معدرين يولي بفنان ككلا أحمد رستا وأنكو أديني دقي سكال الرئ أمريكا ودالمريرة تضباط كان برنامج كأي مرتي نوجيهين بلسه إنه كهر مرنا هست وجوه الرئيسية تضباط كان برنامج كفنكا إنه كسو قاضنا إنه هو هستي معاند ولي بعدكي معانا أحمد رستا أو قاضي حاسكي سقالي جاه ياسمين أي برنامج ككودا فرين هسكا ياسمين داو شوعان ياسمين أي الدنيا ذن أنت عند الجوبيو نرى شيء ده إذلك كسكو إلهي عديقانكو آمني ياسمين أي الدنيا ذن أنت عند الجوبيو نرى شيء ده إذلك
ahaataba adaan kula dabaaldegi goorti ay ahaataba adaan kula dabaaldegi oo nooridayda ubax kugu dul shubaya axadan isbaraniyo ogow aqalgalkeeni goortay ahaataba adaan kula dabaaldegi goorti ay ahaataba adaan kula dabaaldegi oo nooridayda ubax kugu dul shubaya arrimaha dhexdeeniyo axdigana adkeeyo arrimaha dhexdeeniyo axdigana adkeeyo inaan adi ku jecelahay weligaa ogsoono inaan adi ku jecelahay macaanii ogsoono arrimaha dhexdeeniyo axdigana adkeeyo arrimaha dhexdeeniyo axdigana adkeeyo inaan adi ku jecelahay weligaa ogsoono ayaamaha kalgacalkay dadku ay asteesteen waa maalinta jaceylka loo asteeyay 14 February ma 14 February maalinta jacaylka maalinta axadaynu kulaniyo ogow aqalgalkeennii goobtii ay ahaataba iyo goorti ay ahaataba axmed rast aad ayuu maasan yahay barnaamijka heesta ugu horeysay ayuu ahaa iyo weliba heestii ugu talagalay xaaskiisa qaaliga ah Yasmin waynu salaamaynahay labada waayahay barnaamijka garsoorka fanka qaybihiisa hore ayaad la socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya ayaad ka daawanaysaan weliba stuudiyiisa dalka Finland weliba fanaanka Axmed Rasta wuxuu ka mid yahay fanaaniinta dalkan Finland Finland ugu soo booqday Aad iyo aad. waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb galay showgii uu ku qabtay Finland sanadkii hore. waaw heesta Yasmin asoo live u qaadayo waa aragtay taageerayaashiisa ugu horeeya Axmed Rasta waynu Aad salaamayna iyo Axmed aad iyo iyo Yasmin aad iyo weli barnaamijka garsoorka ayaynu bartamaha kaga jirnaa markana waxaynu soo qabanaynaa fanaanka labaad ee tartamaya toddobaadkan intaan fanaanka soo qaban nadiifay sheeko yar ma uga sheekaya daawadayaasha iyaga inoo soo direen way fiicnaan lahayd sheekooyinka si aada ayay ula socdaan daawadayaasha waayahay waxay noo soo direen sheeko hadda ka horna aan ku arkay barta bulshada uu leeyahay saaxiibkeen wariye abubakar albadri albadri waynu salaamayna salaamina ayaa waxay noo soo diray qof daawadayaasha barnaamijka kamid ah waxa uu yiri waa sheeko ka hadlaysa waxyaabaha khiyaaliga ee nolosha gabar baa habeenkii iyadoo xaajigeeda la jiifta xaajigii baa qarway qof kale magaceeda ayuu ku qarway ayadiina inta soo fariisatay naxday hurdadii ka kacisay xaajigeeda Ha. maadaama uu magac kala sheegay markaas waxay tiri qofka sheegaysa waa kuma asaga muusan Yiri, xasuusan maba ogiba ani qofka hurdaaya ahayo waxaas maba markaas waxay tiri ma ogi kaama yeelayi hadda waa inaad seexataa Si aad marka lagu celiso. seexo si aad riida qarowga meesha uga sii wado markaas wuxuu yiri dee qof hadda seexanayo oo haddana wixii meesha kasii wadaa ma jira walaalina dee adigana karta macnaa ida sheekada xiiseynaysa loo sii wadi karaa waadid waxay rabtay inay ogaato qofka iyo dee faahfaahin dheeraad markaas wuxuu sameeyey wuxuu yiri anima jiifan karay mana sii wadi karay walaal iga daadi muran kadib suuxi shaqadiisu iska aaday xilli duhuradii oo kala markay tahay wiil ay iyaga dhaleen baa wuxuu jiiftay guriga daaradiisa qoraxda Hay. qorax ku aadanto inta jiiftay baa cunugiyo riyo macaan ku jiro oo hadde iska riyoonayo oo shimbiro iyo la socdo uu hadla baa hooyadii kicisay haye hooyada markay kicisay ay xambaartay cunugii afkii baa qaban waayo waaw maxaa ii kicisayay aaw shimbiraha la socdayay Riyo macaan ay aawe kicisay. baalashaan lahaayay aawe doogii aan ku dhex jiray maamada yaab cunugii afkii u furtay waaw isagoo oyna aabbii guriga kasoo galay markaasuu yiri maxaa ku dhacay wiilka markaas waxay tiri isagoo hurdaa inta kiciyey ilaa haddan wuxuu Riyo macaan ay ka leeyahay qasbay. baalashaydii aaway shimbiraha la socday aaway doogi markaas hadee wuxuu yiri cunuga see xiriyadiis meesha kasii watay ma yeelo yara markaas wuxuu yiri sidee adi xal ku keentay riyada halkaas kasii wado waa maasantaa saaxiibkee noo soo diray aadan ayaa la yidhahdaa aadan saaxiibkee noo soo diray qoraaga iyo weliba aadanna waanu mahad celinaynaa barnaamijka ayay qayb ka ahayn toddobaadkan markana heesihii ayaynu xigay noo soo qabanaya ma garanaysaa ii sheeg fanaanke farxiya fiska
boqorada codka haddana maxaan u raadinaynaa haddii ay ku guulaysato ma garanaysaa inay noqoto xidigta fanka heeskan soo qabanaya heeste maxaad iisa sabaysaa ma 8 jir baan nahay maxaan kuusa sabeeyaa ma 8 jir baa tahay ha waa sidaas daawasho wacan daawasho wacan saxarihiina duuyayo sumi adhiga oo qaba ibtihaalku saayadee suqa masama bixin saxarihiina duuyayo sumi adhiga oo qaba ibtihaalku saayadee suqa masama bixin والله أرد سدجير قرتي ودم بيسمع خانة سدجير وكسر طي دور إلى لبعض صدق كان لكن ما تقنا شرماركو وحا أركيس هذا وين سدجير عمل رقم فرحية ذات كاسي كان اللي اسمه سيد هبلة
مشاكل هذا أوكي. لكن ضد بدل سيدجيرك وعقلية laakiin xigmad baa hadda ka hor arkay oo dhehaysa ninka ragga ah waa qofka dumarka ee marwadiisa ah in uu raaligeliyaa mar walba uu ka qaldan yahay laakiin gabadha waa ninkeeda in ay raaligelisaa mar walba ay saxan tahay ama ay ka qaldan tahay kule ani ma dhihin xigmada hadda ka hor ku arkay barnaamijka garsoorka fanka telefishinka qaranka Soomaaliya ayaynu bartamaha kaga jirnaa iyadoo toddobaadkan ay barnaamijka marti inoogu yihiin fanaaniin qaali ah oo ay ka mid yihiin Farxiin Fiska iyo waliba Nimco Dareen oo isku aadan iyo waliba halka kale Axmed Rasta uu ku aadan yahay dhigiisa reer America waa dalmaryar inkastoo Mareykanka daris ay ku yihiin haddana waa isku aadan yihiin waayahay barnaamijka ayaad la socotaan qaybihiisa dhexe ayaana hadeertaan marayna markan Sharmarko aynu sheegnay natiijada toddobaadkii hore xuriyo soo dhawo aad baad u mahadsantihiin nadiifo iyo Sharmaake daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan natiijadii guud afartii fanaan ee aynu tartansiino toddobaadkii la soo dhaafay sida shaashada ka arkaysaan waxaan toddobaadkii la soo dhaafay tartansiinay afarta fanaan ee kala ah Dayax Dalmurshe iyo Axmed Sako isku aadan halka isku aadinay Faadimiina iyo Laka Xaaji Wacays haddaba guud ahaan taageerayaasha ka soo codeeyay page-ka garsoorka fanka waxay codayntooda noqotay 2369 haddaan idin kala qaaxno sida fanaaniintu ay codadka u kala heleen waa sida tan shaashada mar kale ka arkaysaan Faadimiina waxay heshay 570 cod halka Laka Xaaji Wacays ay heshay 630 cod Axmed Saki waxa uu helay 540 cod Dayax Dalmurshe waxa uu helay 629 cod waxaana toddobaadkii aynu soo dhaafnay wareegga labaad u soo gudbay Dayax Dalmurshe iyo Laka Xaaji Wacays afarta fanaan ee toddobaadkan aynu tartansiin doono iyo qaybaha kale barnaamijka waxaan dib idin kugu celinayaa Nadiifo iyo Sharmaake aad baad u mahadsantihiin wow toddobaadkan hadda natiijada xuriyaha hadeertaan markaan arkay la yaab bayba noqotay toddobaadyada hore 100 iyo xoogaa ilaa iyo 200 dadku way la qabsadeen barnaamijka aad dadku la qabsadeen hadoo kale fiiri natiijada 2369 qofood ayaa codaysan sida natiijada aan ka arkaynay sidoo hore toddobaadkii hore 500 weyn baa u dhaxeeyo waxyaabaha ugu qosolka badan natiijada la socodkeeda marka aan qiimeynayna fanaanada Faadimiina iyo fanaanada Laka Xaaji Wacays waxaad moodaa inay isgarab socdeen waliba maalmihii ugu dhawaa fanaanada Faadimiina ayaa sareysay haddana wixii baa isbedelay Lakiya kor u kacday mar waliba hadii la tartamo Sharmarko laba dhagax isku dhufto mid baa jabaya waa sidaas nadiifa fanaan ka xiga inoo soo qor Sharmarko waa mahadsan tahay markana waxaan soo qabanaynaa codka macaan ee dalmaryara iyo waliba heestiisii toddobaadkan barnaamijka martida noogeedu waa heestii la magac baxday waan imaanayaa waad imaanaysaa daawasho wacan شاحيقصو أحذيكم أنا مريم أحذيكم أنا مريم الوضع قروحي إما شاحيقصو أحذيكم أنا مريم أحذيكم أنا مريم وكاديقتا أيا آمن بحو وكاديقتا
bixin haddiiba yeelana waan imaanayaa ayga aamin bixin urkadiigata ayga aamin bixin haddiiba yeelana waan imaanayaa jiro amniga isku dira yaanu ku amdinina qoraxdayda maqal jiro adniga isku dira yaanu ku amdinina qoraxdayda maqal inayahay ogow ifka waxa kuna adan ku jeclahay adan ku jeclahay inayahay ogow ifka waxa kuna adan ku jeclahay adan ku jeclahay urkadigata ayga aamin bixin urkadigata ayga aamin bixin 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 haddiiba yeelana waan imaanayaa urkadigata ayga aamin bixin urkadigata waan imaanayaa ayga aamin bixin urkadigata waan imaanayaa ayga aamin bixin Digatal. hayga aamin bixin Ha, laakiin garatal. Ani hees jecel inaan de soo qabto. Adigana sidee jir baa tahay imtida jir baa tahay. Ya, cadaalad ma. barnaamijka dambe ayaanu soo qaadanaa waa bedelaysa soo waa sida aniga iiron waayahay fanaankaas ku ahaa dalmar yare aad ayuu mahadsan yahay weliba hees aad u qiiro badan ayay ahayd oo weliba dareen gooniya dalmar waxaa la yiraahdaa waa isku xiraa fanaaniinta meel walba fanaaniinta maraykanka fanaaniinta afrika meel walba isaga
waynu salaamina barnaamijka iyo toddobaadkan martiya waana rajaynayaa inuu toddobaadkan dadka soo bixi doono uu ka mid noqdo maadaama de isagii axmarasta iyo xaajiyadiisa asalaanta isagana hadda dhow xaajiyada waynu salaamayna labada xaajiye ee faraska ku socday waan idin salaamayna waayahay barnaamijka garsoorka qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay nadiifa sharmarka barnaamijka qaybihiisii dambe ayaynu soo gaarnay iyadoo daawadayaasha ay noo soo direen sheekooyin aad u xiiso badan dhanka sheekooyinka barnaamijka adiga u qaabilsan waa sidaas keligii uma qaabilsan toddobaadada soo socda waa isla qaabilsanaan doonaa nadiifaaya ee waxaan markan ee sheeko kale inoo soo direen sheekooyinku waa badan yihiin lama aqrin karo laakiin barnaamijkan kan hadduu naga dhamaado ko waxaa bilaabayna 2 saac iska soconaya 2 saac iska soconaya waanu rajaynaynaa inaan idin qancino intii aynu awoodin haddii sida idinka noo daawateen ballan annaga noo idin qancin doonaa sheekana loo soo diray sheekadii darad xasinimada ka sheekeynayna labada wiil dhalinyarada ahaa dad daawaday sheeko kale ka keeneen sheekada soo diray waxay yiraahdeen laba wiil baa isla dhalatay labada wiil aad bay isu xaasimeyn jireen oo midkan guriga markuu joogo midka kale ka daba shaqeyn jiray ha kan dii wax meel dhigto kana ka qarinay kan dhibki aad buu u batay heer markuu waa laba walaalo guri ku wada nool haddana iska raxsaday haddii waalid la noolyihiin markaas midba midka kale wuxuu ka taagan tahay marun ha mu dhaaf markuu ayagoo isaga fadhiya hataa kala qarinayna wuxuu leeyahay ilaahu kan naga qaad kan kale wuxuu leeyahay ilaahu naga qaad iyagoo sida isku nacbaa maalin badda isku raaceen baddii la tagay waa la wada dabaashay labada markii la dabaashay midkii weynaa maahan midkii yaraa maahan midkii weynaa babihi uu biicab macna uu biicab alla maxaa dabaal taqaan maxaa dabaal taqaan shibisagii baade ceebta leedo waa u dhaween mala shibis bad ma ku taalo maayo Cabdicasiis soo qadirisna shibis aragta Cabdicasiis aragta miya waaye labadii wiil ee wada dhashay biyi markay wada galeen midkii weynaa baa biyo cabay meel mool inta galay kii yaraa dabaasha ku ficnaa kii dhiman uu soo badbaadiyay banaanka keenay biyo ka bixi markii biyo xaloosha uu ka bixiyay wuxuu yiri kii weynaa hadla wuxuu yiri saaxiibo xaasidkayga ahayd maxay badbaadis waaba inaad dhintaaba ku duceysan jirtay way ay badbaadis markaas wuxuu yiri inaad dhimatay run waa ku duceysan jiray laakiin haddeertaan waxaa maqloo dhaa hadda kahor qofkii badda ku dhinta shahiid waa jannadoo galaa marka jannada inaad gashid ama kasoo horjeedo dhaa jannada ku diidanaa sidaa awgeed aana kusoo badbaadiyay sheekadii xasinimada kuwa daawada ay noo soo diray weliba waxay noo soo dirtay gabar nasra la dhahaayo aad ay u maatantahay nasra weliba waa sheeko aad u xiiso badan waxaana rajaynayaa inay dadka xasidnimada ay iska dhaafaan xasidnimada laakiin inay fiicanta inay fiicnaysa lagu kala ogaada ma fiicna xasidnimada sababtoo haddii xasidnimo ay jirto ani adiga inta ma wada taagnaaneen waxaa isku noqon lahayn dad cadow ah okay hadda bilaa xasidnimo isula taagana waa sidaas heeska ugu dambaysa nadiif soo heeska ugu dambaysa inuu soo qaadanayno waa codka macaan ee nimca dareen nimco waynu salaameynaa waxayna ka mid tahay fanaaniinta reer Finland ee Finland aadka looga jecel yahay waxaana soo qaadanay heesteedii ama heesaheedii kuwa ugu dambeeyay macnaha waxa ula jeedaa dirisena la tahay waxaa maqli jiray deriskii ahludiinka deeq gaabana loo khalaa ee wareerka ku dhahay waa gaaba ku neefso marka Finland hadda gurigeedii le baa heeska soo qaadnay meeshay ka tartamaysaa nimco ayaanu soo qaadanaynaa nala daawada heesaheedii kuwa lagu jecel yahay heestan ka mid ah heeskan waa ma heesa horta waayaan boo ka dareemaa inaan qadna nawarjiin am baristimoon isku day sallallahu barik waayahay fanaanada afarta ah ee toddobaadkan aan tartansiinayno ayay qayb ka ahayd fanaanada nimca dareen yaa ku aadinay waxaanu ku aadinay farxiyo fiska oo toddobaadkan iyadu la tartamaysay
waxaan kala isku aadin axmaras iyo wala iyo waliba dalmaryare toddobaadkan ay barnaamijka marti inoogu ahayn waa rajeynaya in taageerayaashooda ay si aad ugu codeeyaan halkan ayaad uga codeyn kartaan halkan aad ujeedaan ayaad uga codeyn kartaan halkii kale ahna hadday ay soo sheegnana waa looga codeyn karaa waan rajeynaya inaad si aad u wada garateen meesha laga codeynayo iyo habka loo codeynayo gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay waxaanu idinkaga tegaynaa tan iyo intaynu toddobaadka dambe haddii alla hawoodale dib aynu hawada ugu kulmi doono barnaamijka garsoorka fanka iyadoo gacan ay naga siiyeen barnaamijka soo saaristiisa iyo weliba dhanka kaamirada MJ Taajir iyo waliba Yaasir Maxamed Daahir waxaa barnaamijka qayb ka ahayd Xoriya Cabduqaadir Sheekh Cali iyo Cabdalla Cabuudi intaynu toddobaadka dambe haddii Allah wadala dib hawada aynu ugu kulmi doono xilligan oo kale waxaynu idinkaga tegaynaa waxaan sidaas oo kale u mahad celinaynaa habka aad u codeynaysan ee votingka ah waxay naga saaciday Zakariya Xaaji Xaashi oo habkan caalamiga ah inuu sameeyay waliba uu sameeyay barnaamijka garsoorka fanka aad ayuu mahadsan yahay Zakariya tan iyo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo barnaamijka garsoorka fanka garsoorka fanka garsoorka fanka